ingiriisku wuxuu xukumi jiray wuxuu lahaa ingiriisku waxa la yidhaahdo xukum moogtahay dadban oo kale moogta oo la odhan jiray indirect rule yaa jiray oo xukunkaasi qabiil walba ingiriisku gaar buu ula macaamili jiray isagoo haddana dushii ka wada haysta ayuu haddana gaar ula macaamili jiray oo qabiilna qabiil markaa uu sheekadiisa uguma dari jirin oo yani midka kale ma odhan jirin kana kan xukumiya kana kan xukumo mid walba gaar buu ula moogta macaamili jiray dadkii haddana wada soomaaliya laakiin qabaa'ilkii wuxuu ixtiraamay treaty-ga ula dhigtay aan kasoo boodo taa markaa xorriyadda markii la qaadanayay bishii May 23 1960 ingiriisku markii uu si moogtahay formal xorriyadda u siinayay gobolada waqooyiga horta magaalada London baa la tegay qabiiladii markaa waqooyiga uu markaa gumaysanayay oo markaa qabiilkii dhulbaanta ku jiro laakiin markii dambe protectorate uu soo daray qabiil walba qofkii masilayay ayuu gaar uga saxeexay in uu moogtahay xorriyadda siinayo markaa ingiriisku wax Somaliland la yiraahdo in xorriyad masjid wuxuu siiyay wayna qoran tahay wuxuu siiyay territories-kii uu xukumayay dhulkii uu xukumayay oo markaa qabaa'ilkii uu la saxeexday ahayd buu xorriyadda siiyay iyaguna markaa iyagoo mid waliba uu xor yahay ayuu markaa lagu heshiiyey in Soomaali lagu biiro ta kale aniga soo qaadeen xorriyadda intaan la qaadan dadka aniga sheekeynay qaarkood loo oran jiray USP United Somali Party loo oran jiray oo markaa ka koobnaa qabiilka kala bursiga ciisaha dhulbaantaha iyo warsangeligu xisbi gaar ah bay samaysteen iyagoo markaa ay rabeen inay Soomaalinimada ku darsadaan marka qabiil Soomaaliyeed oo qabaa'ilka kale markaa u yeerinay oo waqooyi koonfur geeyay ma jirto ta kale calankan moogta la leeyahay koonfur baa la geeyay ma jiro calankan waqooyi moogtahay Soomaali wada qaatay horun ugu wada heshiisay wuxuu ahaa calankii 1954 dowladii Cabdillaahi Yuusuf ee markaa Muqdisho ka jirtay koonfurta jirtay calankii uu baa la qaatay calanka oo hoto laga soo qaaday waqooyi oo la geeyay muxuu ahaa Muqdisho ma jirto ta kale waxa weeye xorriyadda markii la qaatay 1960 tuulo kasta oo Soomaaliya iyo meel kasta oo Soomaali joogto mar qura looga wada dabaaldegay mar qura calankii Ingiriiska laga wada dejiyay oo cid gaar ah oo qabiil gaar ah oo isma jiro annaka dejino dadka kalena markaa ku soo casuunay jirto ma jirto markii xamar la tagayina am Soomaali isku imaneysana wax hore looga sii heshiiyay oo sii socday bay ahayd marka Somaliland gaar u taagan oo muxuu ahaa Soomaali ka duwan oo xorriyad qaadatay ma jirto waxaan kaloo idigu darayaa Somaliland magac kelmadda laftigeeda waxa weeyaan waxa muqtay marka isticmaalku loo yimiday waxa la inoo bixiyay British Somaliland Italian Somaliland French Somaliland in waqtigii qura ee la bedelay waxay ahayd 1950 ilaa 60kii markii gobolada koonfurta loo dhiibay muxuu Talyaaniga oo UN tuna dusha ka maamulayso oo ahaa trusteeship United Nations trusteeship territory of Somalia markaas Soomaaliya soo gashay laakiin Italian Somaliland baa markii aan yaraan iskuulada ku jirayna Somaliland qura ay jirtay waxay ahayd French Somaliland way markaan nunu yaraa xilinkii kadib dadkii iskuulada galaan ahaa marka wax qura Somaliland jirtay waxay ahayd French Somaliland French Somaliland 66kii guddi gool bedelay 76kii meelaha oo magacyada qabiil u bedelay laakiin marka hore French Somaliland baa marka aan soo galo si dawladda Soomaaliya halka ka saar dawladda Soomaalida midnimada Soomaaliyeed waxa weeyaan sida loo dhigayo marka ma aha oo marka la leeyahay Soomaaliya iyo Somaliland waa arrin qalada in Soomaalidu dhan xadgud waxa la yiraahdaa muxuu ahaa halada xanafla iyo waxa inaan looranin hada xanafla tani maaha guida hada xanafla guida laftigeeda hada xanafla kala qoqobka Soomaalida hada xanafla laakiin hadda runta sheegto ma hada xanafla dawladda Soomaaliyeed waxa loo xil saaray adduunkuna uu aqoonsan yahay loona ictiraafay in wadanka Soomaaliyeed oo dhan iyadoo ay mas'uul ka tahay loo yacdo ilaa raas Kamboni intaas oo dhanna iyada mas'uul ka ah qarannimadeeda inay ilaalisanayso marka haddii ay jiraan dad Soomaaliyeed oo wax tabanayay dawladda Soomaaliyeed bay tahay inay la hadashana waxa marka iyagu ay yihiin haddii marka qabiilka Isaaq la yiraahdo raalliga hada qabiilka afwan ku dhifanaya waayo wadankii dhanaaba kala go'aya oo wadankeedii dhanaaba baabaya marka waxaan yani aynu hadalada dib ugu celinay ma taalo way runta isku sheegnaa waxa ugu weyn ee moogtay maanta guida يعني هربود ياي وقبيل كيساقة وحنا مقتها يخنا سي وعلي وإنه إسلام Somali National Movement وهاي الأورد قبيل كاسة ليسوا هالجماعة جويدا إن كلام جويدا وطن مركو ورقة كم يدفني ليس هو صابح هو يجرب إنه صار شعب حين ما كده
والله نحرسي إبراهيم ليه سمت بابا الشيء كن يسقال بقولي أفريس جيتنكي أي أسرم تكشرين مقالة برعكون هشيين إن وطن كبوان الله نحرسي عبد الله يوسف الشيء ما كان سوى جوبي يوتيوب كانوا كجرين إنترنت كي مروا بلغه الكرا إنه كم أغلي إن أي جروب ده هرجيسي أي وطن ككلبوين يان دبتنا مركي تبع ومقصة كلا الله تان الله وحري أي موقع عبد الله marka dawladii Soomaaliyeed iyadoo waxa soo dhan arkaysa waxa weeye in ay sanan ku socotaan waa doon galsanahay waxa weeye dadka gobolnimada qaba ee gobolada ka soo jeeda awdal ee maaqir ka soo jeeday awdal la galiilay la wajaar dadka ka soo jooga cayn sool sanaag gobolada soo dhan moqtay baran laas qoray laas moqtay kullu ka soo dhan dadkaasi waxa weeye midkood namar rabo muxuu ahaa inay wadanka Soomaaliyeed ka go'aan waxayna rumaysan yihiin guddigoodba inay nationka Soomaali ka mid yihiin waxayna aaminsan yihiin midnimada Soomaalidu inay muqadas tahay waxa weeye qofka jooga Garowe iyo muxuu ahaa iyo Garowe jooga iyo Laascaanood dagaal ma dhexmari oo lama oran karo dagaal baa dhexmaray qofka jooga Baran iyo Laasqoray jooga iyo Boosaaso jooga dagaal ma dhexmari waa isla qabiilkii hartigii oo labadii dhanba degan marka qofka ku fikiraya in qabaa'ilka hartiga oo xuduud u sameeyo isagu ma ogolaan lahaa haddii burciya hargeysa xuduud ay qabiilada daaroodku ama hartigu dhex marayaan ma aqbali lahaa isagu ma aqbali lahaa haddii qabiilada galbeedka degaayi ee muqtay awdaliya degaayi ay ku yiraahdeen qasama ku goyna ma aqbali lahaa waa maya marka waxa weeye in Soomaali waxaan leeyahay anigu dawladda qaranka ay naga mas'uula dawladda federaalkiina in sida u socotay ee xishoodkii ma soconayso way waxa weeyaan wadanadan adduunku iyo ku danahooda wataan waxaana ku marinayaan leynka iyo ku rabaan oo kala go'a Soomaalida waxa ku oranayaan Soomaaliya Somaliland baa tiina waxaan saxeexa halkan iskugu yimaada marxaatiga dhiga waxyaalahan laga saxeexayo oo dhani waa sidii MOUD ama Memorandum of Understanding ama isfahamkii lagu sameeyay muxuu Nairobi ee badda Soomaalida oo kale markii dambana maxkamadii inagu noqday carqalada waxyaalaha adduunka la horgeeyay ee moogta dawladii Soomaaliyeed tarafka ka tahay geynaysa meelaha waxyaalo wadanka Soomaaliyeed khatar geynaya kala geedan uu horseynaya midnimada Soomaaliyeedna fogeynaya marka aan waxaan leeyahay qabiil Soomaaliyeed lagu duulo oran maayo hal dagaalama oran maayo laakiin oo socdaan waa qalad kale waxaan leeyahay in qof dawlad kasto oo jirta adduunka dadkeeda naftooda ilaalisa hantidooda ilaalisa xorriyadooda ilaalisa iyada mas'uulka dawladda Soomaaliyeed dadka aan ka sheekeynay gobolada waqooyiga oo degan iyada mas'uulka qof hargeysa joogo oo le waan go'aya wadanka mas'uul wasiirka khadka ka yar xumaaday baa laga yaabaa Saleeban wasiir maansheeyo ku maqli mayno gaajinayo ka dhacay speakerka ka dhacay speaker maaha inayo muxuu ahaa inayo gedad la geynayo waxa ka mamnuucan la geyn waayo muxuu ahaa buuqoodle waa in qalad iyo ka fasax qaadanaya in ciidanka Soomaaliyeed la geyn waayo Laascaanood iyo ka fasax qaadanaya in ciidanka Soomaaliyeed baran la geyn waayo ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo ka fasax qaadanaya waxa ka fasax qaadanaya qofkii ku lahaa waan go'aya iyo ka fasax qaadanaya marka aan waxaan leeyahay midnimada Soomaaliyeed waxay ku jirtaa iyadoo runta la isku sheego kuntana la waajibo qofkii Soomaaliya ee taxtamanaya ee aan moogtahay la moogtaan wadankan ma raba inaan ka mid noqdo waxa weeye waa in la qanciyo laakiin waxyaalaha qofkaasi qaladka ku sameeynayo waa inaan loo dulqaadin kale waxa weeye gruupkan raba gooyta gruupka hargeysa aan sheegay hadii ku horaale waxay yiraahdeen waan xasuuqay saasaan u go'ayna iyaga laftigoodu maanta bishu waa 5 waana February shalina 4 bay ahayd 1991 isla maalmaha magaalada la yiraahdo Dila iyo magaalada la yiraahdo Boorama kun iyo wax ka badan bay ku xasuuqeen iyo koox ciidamadii Ingiriis la socday hadii marka maanta uu ku dacwiyo qabiilkii gada bursiga oo yiraahdo waa la xasuuqay ana Soomaaliya waan ka go'aya waa hadal uu oran karo wuxuu oran karaa waa la xasuuqay inuu kuna cadowgayga tii oran karaa gruupka laftiisa la waan go'aya malaakiin xaq ma ahayn way Soomaali dibal diidaya in Soomaali kala jirto Soomaali way soo wadalayay cid waliba cid bay dishay cid walba Soomaali dibadda soo gaadhay magaalada soo Soomaali way burtay magaalada Muqdisho burburka soo gaadhay meel uu soo gaadhay mid magaalada Baydhabo burburka soo gaadhay iyo dadkii ku dhintay wada ogtii in gobolada bariga wixii ka dhacay wada ogtii barigii hore qabiil Soomaaliyeed marka waxa soo dhan tuu cuskado Soomaaliland ku go'aya oo ka tagaya ma jiro marka waxa weeye gruubadan hargeys ee beesha saaqoliba u badan
waxa weeye inay Soomaali la fadhiisato siday tahay inuu la fadhiisato laakiin dadka kale aan loo aftuubin oo magac la yiraahdo Somaliland iyo Soomaaliya intoo loogu hoos qariyo dibadna wadankii sida lagu baabiyay sababta anagu markaan san gaar u hadlay waxa weeye in Soomaali ka soo kooban annaka dadka iyaga aan ka hadlayeen kulaha gobolada sandegna si gaar ah inoo saameysa bari hadii la kala go'o khatarta ugu weyn annagoo taariikhiyan aan ka mid ahayn dhul aan ka mid ahayn ayaa lagu qasbiya xukunahan ka mid ahayn ayaa lagu haynaa hadhowna khatarta ku soo gaadha ama baaba ku soo gaadha adaa la noolaanaya marka waxay tahay in dadka wax ku talnaya ama qofkaasi geed bulshada ma ciisa haba ma saaqa haba ama dhul maanta ma warsingeeyada qabiil kasto oo waqooyiga taga xaq buu leeyahay inuu hadlo dul Soomaalinimada rumaysan yahay oo yiraahdo waxa socda raali kama yihiin Soomaalinimada rumaysanahay Soomaalina waa ma kala go'ayso Soomaalina waa isku mid dawladda Soomaalida waxa waajib ku ah in ay taageerto oo in ka xishoon taageerada marka hadalka kulli waan qaybsanayaa kasam si joojin aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiir maasheeye runtii hadalkaagaas aad iyo aad buu caddaa waad mahadsan tahay nala joog hadda insha allah tacaala Suleymaan oo runtii daadiinayay barnaamijka hoos u yara dhacay intaan kor soo saarayno waxaan ku xijinayaa Professor Mahmoud Geldon Professor Geldon marka hore adigoo brief introduction iska bixinaya kadibna insha allah tacaala ku soco qodobkaaga horta maanta waxay igu caddaatay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin waxay igu caddaatay last name-kaygu Geldon bilaash uma bixin naanaysta micnaheeday leedahay farsamada sidaan ula qabsan waayay inaan geli jira ay saasa ka muuqataa taasay ka muuqataa waa idin wada salaamay dhammaantiin dhalinyaro iyo waayeel aragtidaad ka qabtaan hadalkaan oran doono iyo hadalkii uu yiri maasheeye wasiir maasheeye aragtidaad doontaanba ka qaba dhammaantiin waa wada salaamtiin bismillaahi araxmaani araxiim waxaan ku bilaabayaa marka hore horta 1991kii 19 marka hore horta afeef baan dhiganayaa intaan hadalka afeefta aan dhiganayaa waxa weeye shucuubta wax u dhaxeeya ma jiraan dadyowga Soomaaliyeed wax u dhaxeeya ma jiraan ama beelaha lagu kala tilmaamo ama gobolaha lagu kala tilmaamo wax u dhaxeeya ma jiraan dhibtan Soomaaliya ka dhacday siyaasiyiin baa abuurtay dad dan leh baa abuuray dabeedna shucuubtii bay ku shaqaysteen markaan anigu Somaliland yiraahdo kama hadlayo shacab weynaha Somaliland taageersan kama hadlayo dadka taageersan qabiilkii la doono waxa lagu tilmaamo waa laga yaabaa inay qabiil badan yihiin laakiin anigu kama hadlayo shacabka kama hadlayo waxaan si ka hadlayaa oo aan xaq u leeyahay inaan ka hadlo taliska ka dhisan Hargeysa 1991kii ayaa SNM markay soo gashay magaalooyinka waaweyn ee waqooyiga khaasatan Burco Berbera iyo Hargeysa ayay shir ku qabatay magaalada Burco shirkaas waxay isugu yeedhay qabaa'ilkii ama beelihii deganaa dhulkii waagii hore la isku oran jiray British Somaliland Protectorate dhulkaas oo aan Soomaaliduna badiyay u taqaanay waqooyiga Soomaaliya waxa isugu yimi odayaal ama ergooyin qabaa'ilka ka socda qabaa'ilkaas sidaad ogtihiin Soomaalidu waxa jiray oo dalka ku dagaalamayay ciidamadii dawladda Maxamed Siyaad Barre xukuumadii Maxamed Siyaad Barre oo madaxda ka ahaa iyo jabhado iyo waxa soo haray qabaa'il aan hubaysnayn oo iyagu qabaa'iluna sidii weligood ay dhulkooda ugu noolaan jireen ugu noolaa markay SNM dhulka soo gashay oo ciidamadii Soomaaliya ay burbureen oo kala yaaceen kala firdeen meeshii waxa ku soo haray jabhad hubaysan oo jabhadii SNM iyo qabaa'il aan diyaar u ahayn oo marxalad aan diyaar u ahayn ay la soo kulantay waxa la isugu yeeray marka qabaa'ilkii gobolka aan soo sheegay oo British Somaliland la oran jiray protectorate la oran jiray ayaa la isugu yeeray burca isugu yimaadeen burco markay isugu yimaadeen waan idin soo koobayaa waxa la keenay arrin aan hore u jirin oo aan hore looga wada hadlin ayaa la keenay waxa la keenay goosashadaasi mid hore waa arrin masiiri ah oo idinku waad malay kartaan hadal baa iga soo dhex galay miyaan lay maqlayn waxay si fiican lagu maqlaa goosashadaasi mid hore looga baaraan degay maahay mid la isla ogaa maahay
laysma weydiin siday ku suurto gelaysaa, laysma weydiin siday beelaha ergooyinku ka kala socdaan ay noloshooda u saameynaysaa, laysma weydiin. laysma oran ergooyinku ha kula noqdeen beelahoodii oo ha soo tashadeen oo dabadeedna dib ha laysugu soo noqdo, laysma oran. go'aankii baa meesha ka soo baxay. aan ergooyinkii beelaha ka kala yimi aanay awood u lahayn inay beelahooda u saxiixaan oo u oggolaadaan. haddii aad rabtaan qof ruuxii rabaa inuu si fiican uga dhergo sida ay wax u dhaceen, waxaad dhegaysataa ama aad daawataa videoga daljir radio daljir uu waraysiga kula yeeshay engineer maxamuud xasan maxamuud hidida loo yaqaan qawaacidna ku magac dheer oo hadda australia degan. waraysiga uu la yeeshay radio daljir ayay ku kooban tahay. waxay dadkii ku noqotay marka argagaxay waxaanay filayn ayay ku noqotay. beelihii aanay snm matilaynin. markii dib loo soo noqday, anigu waxaan laba daraadle xoogagaal u ahay beesha degta ama u badan dhulka ay degan yihiin. dhul badan bay degaan, laakiin degaankooda u badan yahay bariga sanaag. argagax bay ku noqotay. markii dib laysugu soo noqday dadkii waxyaalo badan baa u caddaaday oo soo baxay. waxaa u caddaatay oo u soo baxday, waxay ogaayeen oo weli xanuunkeeda ay qabeen taariikhda xadkii ingiriis iyo talyaani ay kala dhigteen taariikhdiisa oo taariikh madow ku leh, iyo dhibtii uu dadka ku hayay oo laga qaaday, oo xornimadii markay timi laga qaaday, oo ay walaalahood isu furmeen. dhibtii hore oo xuduudda taariikhda madowlihi ay ku haysay ayaa dib ugu soo kacday oo ay dib u xasuusteen. waxaa iyaduna u muuqatay markay wada tashadeen, waxaa u muuqatay mindida dalka lagu kala goynayaa maaha mindi loo siman yahay. mindida dalka lagu kala goynayaa dad bay dhabarkooda saaran tahay. mindida dalka lagu kala goynayaa dad bay dhabarkooda saaran tahay. mindida dalka lagu kala goynayaa dad bay dhabarkooda saaran tahay. taa marka la gudboonaatay beeshaas aan gaar ahaan uga hadlayo, waxaan u malaynayaa de beel kastiba beelaha uu soo sheegay wasiir masheeye oo dhan, mid kasta sidaas oo kaleeto ayaa xaalad degdegii ula soo kulantay. magaalada hadaaftimo ayaa shir laysugu yimi, uu sudaankii shirku wacay oo laysugu yimi sudaan cabdisalaan, ilaahay u naxariistay sudaan cabdisalaan, sudaan maxamed cali sheekh. magaalada hadaaftimo ayaa 1993 laysugu yimi. anigu maraykan baan ka tegay, new york baan markaa deganaa, weli arday baan ahaa. shirkaa waan ka qayb galay. ilaahay u naxariistay wakiilkii sudaanka ismaaciil sudaan maxamuud cali sheekh oo ergadii loo diray burco madax ka ahaa. sudaanka wuxuu ahaa sudaan da-ah oo xanuunsanaya markaa dhulka oo aan socon. markaa wuxuu had iyo jeer wakiilin jiray oo wakiil uga ahaa sanadihii dambe oo dhan noloshiisa. waxaa dhulka wakiil uga ahaa walaalkiis oo ismaaciil sudaan maxamuud cali sheekh oo aan hadda noolayn, ilaahay u naxariisto. ismaaciil sudaan khudbad taariikhiya ayuu shirkaa ka jeediyey. waxaan hadalladiisii aad uga xasuusnahay. wuxuu yidhi markii ay arrintani la soo kulantay buu ka sheekeeyey goosashada. wuxuu yidhi, waxaan hadalka kusoo koobayaa, wuxuu yidhi markii nala yidhi war dibaddaa naloo taagan yahay, yacnii waxa weeyaan dadka ay wada shirayeen ayaa ku yidhi dibaddaa naloo taagan yahay, oo yacni naftayada khatar ku jirta. wuxuu yidhi marka nala leeyahay dibaddaa naloo taagan yahay, annaga xaggee naloo taagnaa? tashada wax la saxiixay ma jiraane tashada. shirkaa waxaa ka soo baxay inay beeshu taageersan tahay midnimada Soomaaliya. intii ka dambaysay oo dhanna go'aankaas ayay beeshu ku taagnayd. waxay soo gaadhay doorashadii waagii dhaweyto ay Somaliland lahayd dhulkaanu ku qabanaynaa, oo dad badan ay ku bogaadinayeen. beeshu way qaadacday. hadda aqalka wakiilada ee Somaliland, beesha aan sheegayo bariga sanaag uu sudaan cabdisalaan, sudaan maxamuud cali sheekh
سلطان كوها هدتنا وسلطان سعيد سلطان عبد السلام سلطان محمود علي الشرا وسلطان كوياي إذا كجمع شفتوا ستوس أيوة قاعد علي سببتها وحي أكتهي إني حنف جارة ولا هذا هي هذا كلا وضن كل يوم هي مرة بان إني كجوان ولا له الصوماليين وحيوار كان إناني جروي ولا سعنود كلا جوي كريم وحيوار كان إناني قرض يدهري كلا جوي كريم وحيوار كان inaanay laasqore iyo boosaasu kala goy karin waxay u arkaan inaanay Soomaali ciday yihiin ciday doonto baa noqotay gobolkay doonto baa noqotay gobolku doono baa noqotay qabiilku doono baa noqotay Soomaali inaanay goy karin bay wax ka maxaa marka Somaliland intii ka dambeysay shirkii burco maxaa laga filayay hadii madaxdii ay markii hore saagtay inay yiraahdaan warbal arrinkan inuu ka baaran degno ay se ogyihiin inuu yahay arrin ceeriin goosashada tan go'aanka goosashadu oo aan la isku raacsanayn maxaa la gudboonaa soo lama gudboonayn inay yiraahdaan warbal dadka isku soo dhaweeya bal dib ha loogu noqdo bal mar labaad dib ha loo tashado mada lagama arag waxaa laga arkay kaliya macangagnimo ayaa laga arkay waxaa laga arkay in ay ciidamo dhaqaalaha ay helaan oo dibadda ka helaan oo magaca intii la isku oran jiray Ingiriisku wada xukumi jiray oo dhan ay ku helaan inay siyaasadayaan hadda Somaliland ayaa waxay ku qabataa in dawladda federaalku waliba khaasatan xukuumadda tan hadda ama dawladda tan hadda uu madaxweynaha ka yahay Farmaajo inay siyaasadayeen dhaqaalihii dibadda ka iman jiray haddii cidi dhaqaale siyaasadaysay Soomaalida lagu caawiyo waxa siyaasadeeyay Somaliland dhaqaalihii waxay u isticmaaleen inay ku meel marsadaan kala goyntii wadanka ay kala goynayeen ayay u isticmaaleen waxay kaleeto u isticmaaleen oo ay awood u siisay inay ciidamo dhistaan marka Somaliland halkii ay soo lahaayeen warbal dadka wada hadla oo isfahma oo marnaba la isma weydiin waxaan dib idin ku celinayaa ilaa ogaalkay anigu ilaa maalinta burco lagaga dhawaaqay goosashada ilaa maantada ma ogi meel kaliya oo lagaga wada hadlay oo la isweydiiyey warbal goosashadani siday dadka ku tahay sidee bay dadka noloshooda ku tahay beelahoo dhan ma siday u wada saameynaysaa mise beela gaara ay si gaara u saameynaysaa meel la isku weydiiyey ma jirto marka waxaa muuqata dadkana iyagu ka dhigayaan inay dan ka leeyihiin inaanay dan ka lahayn ee dhulka kaliya dan ka leeyihiin waayo haddii ay dadka dan ka leeyihiin way u garaabi lahaayeen way iyagu waxay yiraahdaan dib weyn baa soo gaadhay waa run dadka taageersan oo beesha dhexe u badan dib weyn baa soo gaadhay waa dhab oo dib weyn baa soo gaadhay laakiin dadka kaleeto dhibta soo gaadhay kama hadlaan xuduudan ay rabaan inay soo celiyaan dhibta ay ku haysay kama hadlaan mindida tan hadda dhulka lagu kala goynayaa inay dad gaara dhabarkooda saaran tahay kama hadlaan isma weydiiyaan dan kama leh maxay taa ku bedeleen inay maalinba meel qabsadaan sandulle iyo caga juglayn ay dadka kula dhaqmaan hadda dhulka doorashooyinku ka dhaceen waa ama awdal ha noqoto ama sool ha noqoto ama sanaag ha noqoto dhulka doorashooyinkii waagii dhawatay ay ku faanayeen ay ka dhaceen waxa weeyaan dhulka ay ciidamadooda joogaan oo kaliya intaa kaliya ayaa idin tusaysa taageerada ay dadka ka haystaan intaasoo kaliya ayaa idin tusaysa maxaa kaleeto ay la yimaadeen oo ka muuqday macangagnimo la yaab runtii anigu waa la dhaqma waxa waqooyi baan anigu wax ku bartay oo waa ka dhaqmay oo dadku waa dadaan aad iyo aad u jeclahay waa dadaan qulubtooda aqaano waa dadaan dhaqankooda aqaano laakiin waxaa la yaab igu keenay tusaalooyin baan hadda idin tusiyaa marka dhowr malaha xilliga ahayd ma garanayo 6-7 sanadood meelaha miyay ahayd marka baa wuxuu soo dhigtay berbera qaxooti yaman ka yimi ayuu markabkaasu siday taliskii Somaliland wuxuu u ogolaaday markabka waa qaxooti dadku waa qaxooti waa caruur
dumaro markaa u mulay waa dad aad iyo aad u tabaalaysan markabka la socday waxay u ogolaadeen intii ay iyagu haysteen inay reer somaliland yihiin waxay u ogolaadeen ethiopianiskii dad aan soomaaliba ahayn bay u ogolaadeen waxay u diideen soomaalidii ay u arkayeen inay kasoo jeedaan dhulka aan iyagu ay u yaqaanin somalilandna sideedaba waxa weeye waxiga qabiil anigu ilaahay kamaba dhigin haddii aan markabka la socon lahaa waa lay ogolaan lahaa laakiinse gaalkacyo ka yimaada ama baydhabo ka yimaada looma ogolaadeen inay halkaa kasoo degaan waayo waaba loo diidayo looma ogolaan nasiib wanaag dadkii baa kacay dadku waa dad qalbi wanaagsan dabadeedna waa la ogolaaday dadkii inay soo degaan maxaa kaleeto ka jira oo ku tusaya macangegnimada somaliland gabadh ayaa bedroomkeedii maqsinkeedii hurdada iyo sariirteediiba waxay dhigatay calanka soomaaliyeed ayay guglatay waa la xidhay oo wixii ku dhacay waa ogay dhowr sannadood ka hor meydaanka kubadda cagta garoonka kubadda cagta boorame ayaa waxaa lagu qaaday shacabkii mar qura waxay ku qaadeen soomaaliyay tooso soomaaliyay tooso xabad baa loogu gudbay waxaan u malaynayaa haddaanan qaldanayn waa la sixi doonaa haddaan qaldanahay in dhowr ruux ay ku dhimatay macangegnimo xoog leh marka horta markay noqoto macangegnimo mintidnimo xagjirnimo iyo maskax oodan oo aan wax gelaynin waa somaliland taliska somaliland wey cid kale tumaayo waa taliska somaliland waxaan usoo gelayaa xiriirkan wadahadallada marmarka qaarkood la sheego ee soomaaliya iyo somaliland baan usoo gelayaa runtii waxaa la yaab leh saddex waxood ayaa looga baahan yahay labadaba looga baahan yahay saddexdaa waxood oo labada looga baahan yahay waxa weeye oo ay tahay inaynu isweydiino waxa weeye mowqif ma leeyihiin mowqifkoodu muxuu yahay somaliland horta saasay ku socotay laakiin runtii waa in la yidhaahdaa dowladda federaalka soomaaliya ama xukuumadda federaalka soomaaliya iyo somaliland sidaa loo dhigo wey waxaana rajaynayaa runtii in la bedelo oo laga bedelo wadahadallo soomaaliya iyo somaliland ka dhexeeya oo loo bedelo xukuumadda federaalka soomaaliya iyo somaliland waayo haddii kale waxay u muuqanayaan in laba aqbalay inay laba waddan kale yihiin waxaan isweydiiyaa mowqif ma leeyihiin oo ma leeyihiin dood oo ma leeyihiin mowqif ma leeyihiin mowqifkoodu muxuu yahay oo doodoodu maxay tahay oo qorshahoodu muxuu yahay saddexdaasaan isweydiiyaa somaliland mowqif way leedahay oo dood way leedahay oo dacwad bay leedahay adduunka u bandhigtaa waxay doontaba dacwaddaas ha noqoto oo waxay leedahay qorshe xukuumadda soomaaliyeed maxay leedahay ilaa laga soo bilaabo sheekh shariif ilaa farmaajo mowqif way leeyihiin oo mowqifkooda wuxuu yahay inaanu dalka kala go'i karin oo dee maba oran karaan wuu kala go'i karaayo waxa weeyaan dastuurka ay ku taagan yihiin baa la qoraya inaanu waddanku kala go'i karin waaba ku qasban yihiin taa mase leeyihiin dood waayo madasha lagu wada doodayaa maaha soomaali gudaheeda oo keliya waa madal caalami ah ictiraafka ayay somaliland ka doonaysaa adduunka oo dhan bay ka doonaysaa weliba hadda olole xoog leh ayay wadaa marka madasha lagu wada doodayaa waa madal caalami ah maaha madal soomaaliyeed oo keliya madal soomaaliyeedna way tahay madal caalamiyana way tahay madasha caalamiga ah xukuumadda soomaaliyeed dood ma u haysa ma arko ilaa laga soo bilaabo sheekh shariif markuu madaxweynaha ahaa ilaa xasan sheekh maxamuud ilaa maanta oo farmaajo madaxweyne yahay dood xukuumadda soomaaliyeed ay adduunka usoo bandhigto oo ay somaliland go'itaankeeda ku diidan tahay ma aragaan mowqif waa dhactaa ay leeyihiin waddanku ma kala go'i karo laakiin dood tafaqya tiran oo ay dooddaas somaliland kaga hor tagto ilaa waa sidii maxkamadoo kaleetaa loo wada doodayaa ma muuqato ma arko maxaa soo hadhay qorshe iyo istiraatiijiyad aad himiladaada ku gaadhay somaliland way leedahay waxayna u aragtaa inuu waqtigu markuu sii dheeraado baa iyaga faa'iido ugu jirto maxaa ise tahay hadduu sii dheeraado waa marka dowladda soomaaliyeed ama xukuumadda soomaaliyeed sidaa ay fadhiidka u tahay oo u sii ahaato oo sidaa ay u dooda la'dahay ay u sii dood la'aato
دولة الصومالية قرشة ملح جيبوتي وحاول ما يشركي جيبوتي ولا يسويني مسبحي وحليمي دعوتي الصومالي لان أيو ليمي ماشا مدحوين الفرماجو وحل عليه وحماش اللي تبين marka dawladda xukuumadda Soomaaliya xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa looga baahan yahay inay dood la timaado dacwad ma oranayo ta Soomaaliland ba dacwadna la oran karaa doodna la oran karaa laakiin ta Soomaaliya waa inay la timaada xukuumadda Soomaaliyeed waa inay la timaada dood ay kaga hortagayso dacwadda Soomaaliya dacwadda Somaliland ay kaga hortagayso waa inay la timaada saddex waxood baan marka u sheegayaa anigu ma oranayo sida doodeeda ha u dhigto laakiin saddex baan u sheegayaa dhardhaar u ah waa saddex dhardhaarada ma garanayo Soomaalidu wada yaqaaniin laakiin waxa weeye markii digsiga ma garanaysaa xaabada wax lagu bislaysan jiray oo reer miyigu ay dhagxaanta u dhigaan saddex dhagax baad u baahan tahay oo digsiga qabanaya oo ma garanaysaa markaa tubtadaada aad ku bislaysanaysid saddex dhardhaar ayay ku dhisan yihiin marka la soo dhaafo in inta ay sheeganayso oo ay leedahay waa goosanaynaa inuu Ingiriis wada xukumi jiray marka la soo dhaafo saddex bay ku dhisan tahay saddexdaa ay ku dhisan tahay mid waxa weeye shirkii burco wax ka jira ma jiraan waxba kama jiraan dhardhaarka labaad wuxuu yahay inay dadku taageersan yihiin oo ay rabaan waa been wax ka jira ma jiraan dhardhaarka saddexaad wuxuu yahay inay xuduudaheeda oo dhan u sugan yihiin waa been wax ka jira ma jiraan dhulka ay rabto in Soomaaliya laga kala gooyo ciidamadeedu ma joogaan umana dhawa waa inay Soomaaliya oo dhan horta intaa fahantaa ninkii uu shaki kaga jira ama gabadhii uu shaki kaga jira way soo mari kartaa waad soo mari kartaa markaad doonto ayaad soo mari kartaa wadada tan isgaalkacayo ka timaado marka hore goofurta shaba ka timaada gaalkacayo soo marta garowe soo marta oo boosaaso gasha xadka Ingiriis iyo Talyaani ay kala dhigteen oo waa hore la baabiyay waxba uma jirto intaad gaari ka dhigtid ba magaalo kasta tuulo kasta waad soo eegi kartaa meel allaaliyo meel ay joogaan ma jiraan waa laga yaabaa meelaha qaarkood intaad tagtid inay lacag siiyaan oo isla beesha ah inuu meel calan yar ka taagto tuulooyinka qaarkood iyo waa laga yiraahdaa halka waa naga halka meel allaaliyo meel oo ciidankoodu jooga ma jirto umana dhawa mana joogi karaan xaqiiqadu taawi ma joogi karaan waagii dhawayto oo la isku qabtay oo dagaalku ka dhacay Tukaraq sabab buu dhacay sababtoo ah waxa muuqatay inay xuduudda rabaan inay ku soo dhawaadaan Tukaraq baa dhacday Tukaraq iyo waxyaalo la mid oo kale ayaa dhici doona ma tagi karaan ma haysan karaan wa xuduudaad u dheer wa xuduud dhul aad u adag marta ma hadul ay joogi karaan ma hadul laga rabo labada dhinacba gees kaliya maaha xuduud marka xuduud la yiraahdo labadeeda dhinacba dad baa degan labada dhinacba halka xad kama rabaan uma suurta galayso maxay si adduunyada marsataa Soomaaliland waxay adduunyada marsataa Soomaaliland xuduudaheeda gacanta ay ku haysaa sababtoo ah waxay og yihiin maxaa la yiraahdaa Montevideo Convention miyuu ahaa waxaa ka mid ah dhul qeexan yani dadkii raba inay dawlad noqdaan waa inay dhul qeexan leeyihiin dhulka qeexan macnaheeduna waxa weeye dhulaad xuduudihiisa isku sugan yihiin oo gacanta ku haysa taasay og yihiin marka adduunyada waxay marsadaan Somaliland ay marsataa xuduudaheeda gacantay ku haysaa waa been xalaal wax ka jira ma jiraan waxa loo baahan yahay dawladda Soomaaliya xukuumadda federaalka Soomaaliya inay la timaado dood dacwadda ama doodda Somaliland siday u dhigtay oo ay hoos kastoo adduunyada madal kastoo adduun weynaha ay la tagto doodda dood burinaysa oo ka hortagaysa ayaa loo baahan yahay runta sheegaysa Somaliland waxaanay run ku heli karin yay been ku helin waxaan gabagabadii waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaynu haysanaa dal Soomaaliya qiimo weyn ayay Soomaaliya oo dhan leedahay uma laha inta Soomaaliya ku nool kaliya qiimo uma laha waxay qiimo u leedahay Soomaaliya oo dhan bay qiimo u leedahay Soomaaliya
is home to all Somalis. Somali oo dhan ayay Soomaaliya hooy u tahay. Somaliland waxaa la rabaa in laga dhigo meel hooy u ah qabaa'il gaara oo keliya kala gobaysan kala mudan. Soomaaliya midnimadeeda waa inaynu ku adkaynaa oo ku adkaysanaa oo u halgannaa guulaysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. هذه عاد بعد ما حسنت هاي مدن بروفيسور جلدون عاد بعد ما حسنت هاي لو تشوف إن شاء الله موت يقل موت يعني سأيد فكرة ثلاث شهور هذا الكوب بعد ما حسنت آريات بعد ما حسنت وحنا دون يا إنه برامج سياسة عنه مركز برستيج كقبل حنا كدي وحنا بلعبنا إن شاء الله إنه تكشان السينو سؤال ويدين كريان أمورها مدن إن عن لقى حظه طبعا حفلة يا ضياء شيء وحنا كتيجين waxaan waqti kooban siinayaa oo 2-3 daqiiqo ah alxaaj jaamac oo aanu siinayo inuu isaguna nayiro warbixin naga siiyo arinta runtii aad wax looga sheego Professor Galdano uu taabtay ee ku saabsan wixii dhacay 1999kii ilaa 1993 burco sheekh boorame shirarkii nooca ah kuwii nabadaynta ceergaabo kuwii ka dhacay og iyo eriyadaas amurahaas oo dhan inuu noo soo yar dul maro maxaa dhacay maxaase loo dhigaa waxaad moodaa in taariikhda dhow ee 30 sano ku siman in wax weyn la khaldo oo aanayba aad laga beer sheego marka bal intaa yar noo yar kortaabo soona koob mudane aad baad maaqda alxaaji. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مغنى وفليا si wacan u soco. والسلام عليكم أغنيانك ماشي فديه قلدون يو حامد مارشال يو إسماعيل نمان يو أستيقودا يدل كديجي سنيبا. أنا مرة وين أم كل يرادو ويو وضياشة يا إنتي بدنيد قياحي هذا الله مجودي يميسان كذا لها إلا جربي ده كان وقوي جد يسوي كدوني. أنا حرلا inaan noqdo goobjoogaha nool ee tilmaami kara shirkii oog kii burco kii berbera kii shiikh iyo kii boorame iyo kii ceere gaabo iyo intaasi maxay ahaayeen maxaase isbedelay cidda lala shiray iyo cidda la wada hadlayay yay ahaayeen waxaan rabaa intaa inaan ku koobo kow markii uu ka baxay u dhacday snm ay soo gashay burco iyo hargeysa waxaan joognay laascaarood waxaa actually halowga la iskula wici jiray waxaa halow laascaarood kala soo hadlay nin inankain la yidhaahdo oo markaa wuxuu la soo hadlay group markii hore dowladda soomaaliya ay mucaarad ku ahaa oo ay xidhiir lahaayeen oo iyagu magacoodu ahaa nabadoon oo inay nabad ka dhexdhaliyaan dhulkaas ahaa oo garaad cabdiqani iyo raggaas hogaamiyaal u ahaayeen wuxuu ninkaas u sheegay inay nabad doonayaan oo nabad ay rabaan in beelaha dhulkaan degan dhulbahanta iyo habar jeclo ma ahayn hataa habar yoor isuma jirin habar jeclo inay nabad helaan dabeeto waa la ballamay oog baa lagu ballamay actual waxaan malay inay ahayd January inay ahayd baan u malaynayaa February bay ahayd February bay ahayd baan filayaa دولة توكيدي دبت واحد اللي ماشى اللي يدوق هنا كاين يا محمود حاشو مركان يلا بالسعودي حسن كايد ومركان سووا عيدا وطا وقرشوها مركا بحال قرشاه بس عارون إنا يجلان أبر يونس يا أبر شعور البري يا أبر يونس البري بورا من أي جلان جرحكس كشيشة يو خبره دبت ولا أبر شعور ما يبكي قاتل جران مايو لكن أبر يونس ويكفي واحد تدقال كلمة إنه نبض بانقاضانا وتركت عن سوقه نبض بانقاضانا طبيعته أنت واحد على الشيء إن أي ما كسر كاسون لمانه والله هذا وحلو قد واقعي نبض إلا قاطم وليس حبة أهلين أننا حبة يكون الجداي أننا نتقدم الشيء كهذا كم كل واحد على الكل شيء إنه بالبراء إن beelaha waqooyiga degan isugu yimaadaan halkaasoo uu imaanayo safiir ku-xigeenka talyaaniga ee Soomaaliya qaabilsanaa mariga inuu imaanayo isugu nimaado haddaan aslam nahay iyo idinka qabiilada bal ninkaas wuxuu inoola yimaado aynu ka shiro dabeeta arrintii markay dhacday heshiis baa lagu galay xasan kayd
saddex marir buu nala joogay uu naga noqday og markiiba wiil baanu joognay waa ku dhamaanay waxbaa la kala qorortay dee waxba ma jirin qori taabi waxba ma jirin hore walba warqalaad bay ku qorto cali nabad baynu galnay xabadda may dhicin laascaawad baanu ku noqonnay actually waxaanu joognay laba saddex wiil xabad joojintii waa jabtay horta iyagaa jibiyey oo waxay weerareen markiiba gobollada bariga sanaag qaybo ka mida waxay weerareen tuulooyin buuhooda kor ka mida waxay geelal ka dhaceen oog iyo aagaas nabadii way jabtay nabadii iyadoo jabtay haddana soo hadleen waxay dhahan waxaasaa dhacay hadda rag bay ku jireen xataa deegaanka oog iyo rag bay waxaasaa dhacay heshiis kolkiisa burcaan isku nimaadno dabeed berbere shirkaan aan ka qayb galno actually dadku nabadan waa rabay iyana way rabeen dadka kalena waa rabay oo nabad dee wax loo doorsado may jirin markii arrintaasi dhacday waxaa la tegey berbera markii la tegey waa maasinaad alxaaj waxaan rabaa inaad koobto iga raaci aho maadaama waqtiguna kooban yahay dadkuna aad u badan yihin waxaan rabaa inaad iigu ku dhawaato arrinta ah maxaa lagu heshiiyey burco iyo berbera iyo boorame iyo shirarkii waxyaalaha dhacdhacayay lagu shaqaysay maadaama intaba goobjoog ahayd qodobka berbera inaan kugu berbera markii talyaanigu nala shiray gobollada waqooyi la shiray booraba marka ay qabsadeen oo waxbadii bay jibiyeen wuxuu yidhi maxaa idii talaa waxay yidhaahdeen snmt iyo dadka meel joog walaalaha iyo soomaaliya sugaynaa qodobkaasaa lagu kala tegey markii saa lagu kala tegey waxaa laga hadlay in boorana ay ka soo baxaan oo snm ka soo baxdo way ogolaadeen oo maash bay ka soo baxeen 2 bilood bay haystay shirkii burcada dambe markii la isugu yimi may arrintaasi ma jirin wax la yidhaahdo heshiis ah nabadii la xojiyo mooye waxaa yimi 2 nin oo nina yahay yaxya sheekh cali warsame oo habar awal yahay nina la yidhaahdo maxamuud jaamaxala oo isna habar jeclada bariya 2 nin oo buuxaya oo dad urursaday burcay noogu yimaadeen burca waan taagnaa markii la shishiray waxaa la yidhi goosi waxbaa laga hadlay cabdiraxmaan tuur baan u tagnay xasan ciise baan u tagnay oo guddoomiyaha wuxuu yidhi annaga waxba kama qaban karno dadkiina emotional baa ku dhacay qoryaysitaa sida uu sheegay xamiid iyo ay sheegeen goldoonba qoryahan annagu kama leexan karno annagaana nalalaynaya haddaad doonaysaan idinku ka tashada laakiin annagu choice malihi oo dadkan qoryaha sita dadkuna burco haba oo niwa burbursanayd dadkuna qoryahooda siteen dadkan qoryaha sita annagana gelaya marka waxay rabaan baanu u yeelanaa waa ku dhawaaqaynaa 2 nin baa la khasbay baa la yidhi haddaad doonaysaan anigu aan been ka sheegayo waxaad dib u waraysataan u eegtaan waraysigii xasan ciise gudoomiye ku-xigeenkii snm markaa ahaa dib ha loo dhegeyso halkaa markay dhacday dadkii meesha jooga waa shireen samaroon ciise dhulbahanta iyo warshagari maxaa inoo talaa waxaa taladan waxa weeye nabad qaadano halkaana kaga baxno ayna dhaqaaqin dabeed maalinka ku xigtay ay ku dhawaaqeen gaarigii garaan cabdiqani baa la dhacay oo inay nabadu saa ku joogsatay saasaad ku garanaysa gaarigii garaan cabdiqani la dhacay intaa marka waxaa kaga dhabaxaya burco dadkii meesha yimi ee waqooyiga nabadda u yimi nabadii kama tashane waxaa afbuubay oo riixay yaxya sheekh maxamed oo habar awala iyo maxamed jaamac calooco habar jecla labadaasaa jiiray cabdiraxmaan tuur ma ogolayn snm badankooda oo dhan ma ogolayn labadaa iyo dadkii ay wateen baa riixay arrinta halkaa markay ku dhammaatay waa lagu kala baxay dagaalo dhexdoodaa bilowday marka oo dhexda laysu galay arrinta halkaa markay dhacday waxaa heshiiskii galay oo dadkii heshiisiiyey oo shirk isugu keenay beelaha samaroon ciise dhulbahansiya warsageli baa waxay isugu keeneen meesha layaa sheekh iyagay heshiisiiyeen markay heshiisiyeenna waxaa lagu heshiiyey in shirkaa kabacdi boorama la tago in cigaal baa wuxuu soo jeeday in boorama la tago oo snm laga wareejiyo talada adiguna aan la wareego marka qorshahaasaa la qaatay boorama la tegey in cigaal baa la taladii la wareegay kabacdi markuu la wareegana 2 garoob oo kale oo ku isdilay oo ku kala jabay marka waxaan halka kaga baxaya xogogaalnimada marnaba talo ma ahayn dadka waqooyiga degan inay heshiis ku galaan inay goostaan talada 2 nin baa lahaa emotional dadkii burco joogayna si emotionalo qori anay siteen oo dadkooday laynayeen marka kuweenuna kamay ahayn waxba wayna ka soo noqdeen reer walba markay noqdeenna markay aanu lascaado ku noqonay waxaanu shir ku qabanay geedka weyna leeyahay berdaa waxaa loo sheegay raggii meesha marayay fagada iyo calaf iyo cabdiqani waxay yidhahdeen annagu idimaanu soo qaadin wax la yidhaahdo goosasho waxaan idin soo qaadan nabadii hore in la adkeeyo lana tashado garaa saleebaan oo isagu joogay goobta bbc-da baa burco isagoo jooga wareysatay wuxuu yidhi nabad baanu u nimi nabad baanu ku heshiinay waxay goosiga sheegayaan
أنا وكل ما تلو بيصيروا كيف فرعوا توقع مالك بيصيروا كيف أنا ونبض بانور ما لما نقول قوس يلا يا جماعة كل أنا أنت أصل جنب حي وحلا هاي ولا هاي قوس لا صدق عنه بكوكو أيام صدق عنه عربي هو يكون لا كاسينو قال هاي لابو إني مينورتيين صدق إني ملك كي أبكى كدويين وحركة وقوي قال ماها ملك كبدونا أكل واسمع وتعالمي فالصوماليا الجوبل كده كده وقويه الجوبل كأسر ما مقولي كتانو أسر مني لين أمان الدارين اللي وحنو دارين إيرانو إنجليز كذا حورينه أو كل لا تصل برحبة كل ذني كاسة حورين لي لا كاسة أنا وبعد إيمان الشاشة اللي جوار كبعد والسلام